dembiyadii ayaa sii kordhaya dunida guudkeeda, halka niyadda wanaagsan iyo diintuna ay yihiin kuwa la dulaynayo, iyadoo loo arko in ku baraarugeedu keenayo khatarta nabadgelyo darro iyo cabsi baahsan. Waxaa hubaal ah in kororka xanuunada iyo cadaadis maskaxeedka dunyada ka jira ay calaamad u yihiin raadka xun ee uu sababay ilbaxaynta iyo casriyeynta reer galbeedka. Habka Islaamku wuxuu si cad uga duwan yahay habdhaqanka reer galbeedka. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa u ogaal badan qaabka ugu fiican ee garaadka bani'aadamka. Qur-aanka iyo sunnuhuna waa kuwa ugu habboon ee ka turjumaya dhaqan wanaagga iyo dabeecadda bani'aadamka. Muuqaalkeena maanta waxaan ku eegaynaa daawadayaal mid ka mid ah saameynta dhaqamada kuwa ugu xunxun ee laga buuxiyo maskaxda badanaa dadka maanta jooga, taasoo ah hantida, awoodda iyo weliba dabaqadaha amaba kala sareynta dadka. Magacaygu waa Maxamed Cali, halkanina waa Som Motivation Media. Kusoo dhawaada mowduuca maanta. Waxa aynu joognaa nolosha marxalad ay hafisay dhaqanka reer galbeedku, kaas oo diiradda saaray laba fikradood oo baaxad leh. Mid ka mid ah fikradahaas waa raadinta badhaadhe nololeed oo dhaqso ah, oo dad tiro yari aad moodo inay isu diyaariyeen filashadiisa, ama ay aad ugu mashquulsan yihiin si ay u hantaan, halka qaarna ay hafisay ama ay ka cabanayaan duruufaha ka sokeeya oo adag. Waxaynu arkaynaa adduunyada aynu dhex joogno oo ah mid hodantinimo iyo awoodeed, sida lagu soo bandhigo TV-yada iyo filimaanta, oo ah sida loo arko, waxaana loo tafaaxiidan yahay oo hubaal ah helidda badhaadhe degdeg ah adduunyada guudkeeda. Haddaba intee leeg ayay suurtagal noqon kartaa in dadku ay ka fikiraan naftooda, siday isugu diyaarin lahaayeen lama huraanta aakhiro? Arrinta kale ee baaxadda leh taasoo dhaqanka reer galbeedku badhitaarayo waxay tahay iyadoo dadka laga dhigay kooxo kala sarreeyo amaba dabaqado kala sarreeya. Haddaba dabaqadahaas ka mid ah dadka ayaa waxaa laga dhigay inay kala mudan yihiin nolosha, sidoo kale ay kala mudan yihiin dhinaca qofnimada, malkadda iyo maqaamka. Tan marka laga hadlayo waxa ay telefishinada iyo filimada kusoo bandhigaan waxa ay in badan ugu talagaleen inay ku gudbiyaan dareenno laga buuxinayo maskaxda dadka. Fikrad ahaanna ay sal u tahay in markaad dhaqaale hesho aad heshay awood, markaad awood iyo dhaqaale isku heshana ay la mid tahay inaad heshay xorriyadda ah madaxa bannaan, ahna inaad xorriyad u heshay wax kasta oo aad jeceshahay inaad samayso ama aad ku kacdo ficil ahaan adiga oo aan haba yaraatee ka walwalin natiijada ka dhalan karta ficiladaas. Haddaba fikradahaasi noocaas ah waxaa loo isticmaalay si loo xaqiijiyo burburinta kuwa itaalka daran, in ay kuwa awoodda sheegtaa baadidoonkooda dhinaca xorriyadda u noqdaan kuwa ugu mudan nolosha, taas oo la mid noqonaysa in Allah jirin oo adduunyadan ay maamulaan kuwa lacagta haysta ay awoodda sheeganaya. Noloshaas oo u dhalangadiyeysa nolol cadaabeed iyo in tartanka iyo khilaafku noqdaan kuwa guusha horseedka u ah. Culimo iyo saynisyahano muslim ah waxa ay si xeel dheer u deerseen iyagoo soo saaray aqoon qoto dheer oo ku saabsan dabeecadaha dhaqan ee bini'aadamka iyo cilmi nafsiga, kuwaas oo kasoo maaxday ama farac ahaan ay kasoo bixiyeen Qur-aanka iyo Sunnaha, qaabab islaami ah oo qof kasta oo daneynaya inuu helo niyad xooggan iyo wax ku-oolnimo uu raaci karo Qur-aanka iyo Sunnaha. Haddaba halka ay dadka qaar la tahay in kelinimo loogu halgamo sidii loo heli lahaa shakhsiyadda badhaadhaha iyo farxadda, Islaamku wuu ka duwan yahay taas, waxaana horseed u yahay halgan Ilaahay dartii lagu galo, laguna helo garabgalkiisa iyo gargaarkiisa adduun iyo aakhiraba. Haddaba inaad ahaato addoon Ilaahay oo dhaba ayaa qofka garansiinaysa maqaamkiisa iyo karaamadiisa.